بعد 7 عشتها حلما الهناء قصار جنة آوتني في غرفاتها دونه الأعصار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمكن وحان إذن سو قدبينينا موقال عن كغال لينو سيدا لو داويو عذرك باباسيركا سيدا لو غرتو إيا سيدا لو غرتغبا. باباسيركو وحو كميدي هاي عذرada dhibaateye Soomaalida in badan oo kamida lamana garto waxana lagu qaldaa cudurro kale oo markaasi qofka laga yaabo in uu ku fikiro cudurro kale in ay hayaan. Haddaba waa kan Dr. Farxaan oo inoo sharxo sida baabasiirka loo daaweeyo iyo calaamadihiisa. baabasiirku waa cudur aad u xun oo aan fiicnayn maxaa yeelay cudurrada kale oo dhan isagaa jirka ku koriya. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن شاء الله تعالى waxaan kaga hadli doonaa cudurka la yiraahdo baabasiirka oo runtii aan u qaybin doono laba qaybood oo qofka bini'aadanka uu ku dareemi karo marka uu jirkiisa ku jiro. waxaan kaloo tilmaami doonaa calaamaadka qofkaas uu dareemayo marka cudurkaas uu hayo. runtii baabasiirku waa cudur aad u xun oo aan fiicnayn maxaa yeelay cudurrada kale oo dhan isagaa jirka ku koriya. haddii qofku sonkor ay hayso, hadduu dhiigkar qabo, hadduu xanuuno kale leeyahay, jilba xanuun hadduu leeyahay oo lagu ay xanuunayaan, rheumatism hadduu leeyahay, waxaasoo dhan qofku hadduu dawo ka qaato waxaa laga yaabaa inuu ku dareemo in dabcis uu arko keliya laakiin jirka ayna xanuunkii una ka bixin, iyadoo loo sababaynayo haddii baabasiir jirkiisa ay ku jirto inay dawada laftigeeda jirka ku haynayso meeshii la rabay inay wax tarto waxba ma tarayso. baabasiirku marka haddaynu isagu usoo degno laba qaybood buu kala baxaa. qayb qarsoon oo jirka bini'aadanka ku qarsoon iyo qayb aynu naqaano oo banaanka timaada. tusaale ahaan qaybta banaanka timaada waa qofka oo duburta ama gadaal meesha saxradu ay ka baxdo agteeda ka dareema inuu cuncun dareemo ama inuu fin dareemo. qaybtaas waxaa la yiraahdaa waa qayb qof walba oo bini'aadan uu fahmi karo in jirkiisa wax ku soo kordheen markuu arrinta arko, kabacdina uu tusaale qaadan karo inuu iska daweeyo baabasiir wax la yiraahdo. qaybtaas marka waa qayb la fahmi karo oo qof walba bini'aadan oo ku yimaada hadduu fin arko wuxuu leeyahay baabasiir baan leeyahay maxaa yeelay fin baa gadaal iga soo jeeda. qaybta labaad ee ugu dhibka badan ee qofka bini'aadanka la doonayo in la fahansiiyo waxay tahay qaybta gudaha ku jirta. qaybtaas mindhicirada way gashaa, waxay kaloo gashaa margiyada iyo garbaha. waxaad arkaysaa qof margiyada garbo ay xanuunayaan, wax ka hayana uuna garanay, dhakhtar buu tegayaa waxba laguma sheegayo. waxaa kaloo ka mid ah oo lagu dareemaa kuleyl jirka ka baxa, tusaale ahaan lugaha oo kale ama gacmaha ama jirka qofku kuleyl buu ka dareemaya. waxaa kaloo lagu gartaa caloosha qofka taagmaysa, meeshii la rabay markuu wax cuno inuu qashin saar sameeyo oo wixii fiicnaana ay jirkiisa ku haraan, wixii qashinka ahna jirkiisa ay ka baxaan. wuxuu samaynayaa baabasiirku wuxuu ku haynayaa wixii oo dhan jirka, hadduu fiicnaa iyo hadduu xumaaba. musqusha ma aadayo, waxaa laga yaabaa maalintii inuu hal mar aado, ama waxaa laga yaabaa labadii cashaba ama saddexdii casho inuu hal mar aado. baabasiirkaas markaa wax aad u dhib badan. cudurradana waxaan tilmaanay inuu jirka ku hayo. qofku markuu fahmo waa inuu isku dayaa inuu iska daweeyo, inuu caloosha jilciyaa, waa inuu dawooyinka loogu talagalay uu qaataa si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga caafiyo. calaamaadkiisa oo kooban ka gudaha iyo ka banaanka waxay tahay qofka waxaa xanuunaya margiyada iyo garbaha,
مرجيدي قربها حنونية علوش ويستاجس أي مسقوش ما هذا يقص حردي يعني من قنا يقف علوش سي أي صعته شركة كل البكدريمية مرمر وحاول دير إنه عن دريمة مركو صحرانية وحلقة يا مرمر إنه ديك صراع وصحراء أو ديك دريمه وحلقة يا أحل إنه دريمه وحياله قيانة أو أحلقة ويستيدنا إنه دريمه وقضى كصبحان وحلقة يا إنه فين دريمه أنت صودن وواحد لقوا فهمي كرو عذر كبابا سيركا إلهي نوحن كبرينا إلهي إنه نقبض باديو إنك يوحي أمضي حنونك قبطودن الله إنه وقفوا ذيه إلهي وانا مهدسك سبحانه وتعالى في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار فارقتها من بعد 7 عشتها حلما وأيام الهناء قصار هي جنة آوتني في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار